safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa kulan gaar ah ka yeeshay xaaladda guud ee dalka iyagoo uga hadlay arrimaha amniga, siyaasadda, horumarka iyo wada shaqaynta u dhaxaysa dowladda federaalka ah, dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka. haddaba warbixin ay arrimahani ku eegayso waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Zainab Abuukar Maxamed. safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto iyo ra'iisul wasaare Khayre ayaa kulan gaar ah ka yeeshay xaaladda guud ee dalka iyagoo ka wada hadlay arrimaha amniga, siyaasadda iyo horumarka. qoraal kooban oo lasoo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri Ambassador Yamamoto iyo kooxda Mareykanka ee Soomaaliya waxay la kulmeen ra'iisul wasaaraha, waxay ka wada hadleen horumarka Soomaaliya, dhanka nabadgelyada, xasiloonida iyo barwaaqada, wada shaqaynta u dhaxaysa dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka waa furaha dib u soo nooleynta Soomaaliyada cusub oo xoogan. kulanka labada dhinac ayaa yimid xilli uu sii xoogaysanayo walaaca laga qabo khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo caqabada uu ku yahay horumarka siyaasadda Soomaaliya. dhanka kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo warbixin ka soo saaray xaaladda Soomaaliya ayaa ugu baaqay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada in ay dib u bilaabaan wada hadallada si xal looga gaaro arrimaha taagan, isla markaana loo dhammaystiro heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay. siyaasiyiin, aqoon-yahano iyo waxgarad ku sugan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay baaqa beesha caalamka iyo walaaca laga qabo xasilooni darrada siyaasadeed ee dalka. dadka Soomaaliyeed maslaxadooday ka hadleen, cidda dhamaynta laga sugaanay waa dawladda. in wax dhamaysto cidda la rabo lala hadlaa waa dawladda, ma ahan maamul goboleedyadana, ma ahan siyaasiyiintana, ma ahan. Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dalka ayaa rumaysan in ay muhiim tahay in dowladda ay bilowdo wada hadal xal loogu heliyo muranka taagan. ujeedadu nuxurku wuxuu laba qodob ahaa. qodob wuxuu ahaa maxaan ku yiraahdaa khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, khilaafka siyaasiyiinta in la dhameeyo. in wax dhamaysto cidda la rabo lala hadlaa waa dowladda, ma ahan maamul goboleedyadana, ma ahan siyaasiyiintana, ma ahan. marka waxa la rabaa dawladdu in maxaan ku yiraahdaa marka maamul goboleedyadii si loo helo maxaan ku yiraahdaa meesha loo socdo guuleysata inay maamul goboleed inay la hadlaan maxaan ku yiraahdaa madaxda maamul goboleedyada si kasto wax kasto maxaan ku yiraahdaa ku dhex jira. waxaan rabaa dawladdu in maxaan ku yiraahdaa wax badan way qabanaysaa, way dadaalaysaa, laakiin dadaalka inay ku darto waxoogaha maxaan ku yiraahdaa waxa moodaa in awood yar ku dhex jirto. marka awoodda hadii jido maxaan ku yiraahdaa dadka lala hadlo dadka maamul goboleedaha lala hadlo si loo helo siyaasad loo dhan yahay oo hore loogu socon karo. injineer Axmed Maxamed Muuse oo baraka qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa qaba in ay lagama maarmaan tahay wada xaajood labada dhinac dhex mara si hore loogu socdo. isu imaanshaha federaalka iyo dowlad goboleedyadu waa geedka go'an, waa qasab tallaabada loogu gudbayo 2020 ee doorashooyinka, hanaankii isla meeldhigidiisa, shuruucu samayntiisa iyo intii kale ee kolay soo raaci lahayd oo doorashooyinka khuseysaba. waxaan malaynayaa inay isaga yimaadaan ay qasab tahay oo aan laga maarmaynin marnaba. siyaasadaha ama xisbiyada mucaaradka kaliya ma aha labadii madaxweyne ee hore ee isaga ka horeeyay iyo xisbiyadooda, kuwa kalena way jiraan. dhammaanba dowladda federaalku waa inay gogol u fidisaa oo ay la fadhiistaan oo wixii dhaliila ee toosin u baahanna oo marka aanay dowladdu arkayn inay xaggeeda ka dhacayeen waa in ay qaadataa. haddii aanay jirinna waa in qolyahan la yiraahdaa joojiya dhibka iyo dhaliil beeneedka aad wadaan oo ka dhanka dowladda iyo hor socodkeeda. warbixinta ka soo baxday golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale looga hadlay ismarwaaga siyaasadeed ee ka taagan arrimaha Jubbaland, midda Galmudug iyo geedi socodka doorashada la filayo in ay ka dhacdo Soomaaliya. Maxamed Aadan Muuse oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho uu ka hadlay muranka jira iyo sida looga gudbi karo. markay la fiiriyo xaaladda hadda taagan, xaalad loo baahan yahay in wax laga qabto oo aan ku salaysanayn qaab
dastuuri aan ku salaysanayn qaab ah rabitaan ku salaysan baan u arkaa anigu haddii dastuurka la raacana wuxuu waa saxmayaan haddii aan dastuurka la raacinna haddii weli khaladkaasi weligeed ahaanaysa sababtoo qofna waliba rabitaankiisa hadduu isticmaalo waxaa ka baxaya meesha dastuurka haddaan dastuurka marka la raacin xaaladaas saas weli u taagnaanaysa sababtoo nin waliba wuxuu rabaa intiisu saxmato oo la raaco buu doonaya qof walba qaybaha bulshada Soomaaliyeed ayaa aaminsan in ay haboon tahay in la sameeyo tanaasul si guud ahaan caqabadaha jira looga gudbo waa kan mar kale Cabdiraxmaan Jimcaale Cusmaan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka sharciga doorashooyinka ma dhameystirna oo wax lagu dooran lahaa dastuurkii ma dhameystirna waa qabyo maxaan ku yiraahdaa galmudug waa dhulkay taalo waxay u baahan tahay in la dhiso oo maxaan ku yiraahdaa madax loo sameeyo Jubbaland way taagan tahay dawladii iyo ayadu waa kala taagan tahay Puntland sidoo kale maxaan ku yiraahdaa intaas iyo waqtigu waa isdiidayaan marka si waqtiga looga faa'iideysto waxa waa la qaban karaa mar hadii maxaan ku yiraahdaa fikirka horey loogu socday la bedelo oo loo bedelo maxaan ku yiraahdaa wada hadal iyo wax qaraar oo la liqo oo tanaasul loo sameeyo si kastoo ay ahaato dad badan ayaa u tiriyay muranada u dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada qodobo ku jira dastuurka oo aan si cad u qeexaynin awoodaha labada dhinac Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho